مسؤولين كترسن maamulka ximaniya xeeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kulan ay yeesheen kadib waxay ku soo dhaweeyeen shirka lagu ayidayo maamul sameynta galgaduud iyo mudug kaas oo markii hore ximaniya xeeb ay ka biyadiiday hase yeeshee markii dambe ay ku biirtay warbixintan cadaado Cabdifataax Axmed Cali Shiino ayaa nooga soo diray shir ay goobjoog ka ahayeen madaxda sarsare ee dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo 6 bishan ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa madaxweynaha ximaniya xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarlex waxa uu ku saxiixay maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaana kulan lagu soo dhaweynaya arintaasi uu ka dhacay magaalada Cadaado oo xarun u ah maamulka ximaniya xeeb wasiirka arrimaha bulshada maamulka ximaniya xeeb Cumar Maxamed Diiriye Cumar Gureye oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa sheegay in shacabka iyo maamulka ay ku faraxsan yihiin maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud waxaan maanta kulkan ku taageeraynaa oo ahmiyadiisu ay tahay shacabka reer ximaniya xeeb iyo mas'uuliyiintiisuna ay ku faraxsan yihiin mar haddii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay garoosatay in dadka gobolada dhexe degan iyagu xaq u leeyihiin in ay ayahooda ka tashadaan gogoshoodii taalay caasimadda dawlad goboleedka ximaniya xeeb ee Cadaado oo dadka gobolada dhexe degan ay ayahooda uga tashanahayeenna loo ogolaaday Abwaan Cismaan Cabdullaahi Goore oo kulanka ka qayb galay ayaa dhammaan bulshada gobolada Mudug iyo Galgaduud kula taliyay inay ka soo qayb galaan gogosha nabadeed ee taala magaalada Cadaado ee xarunta maamulka ximaniya xeeb waxaan kula tali lahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Ilaahay ku abuuray gobolada dhexe sida Mudug iyo Galgaduud gogol xariir ayaa halkaan u taala qalbi furan iyo gacmo furanna waa lagu soo dhaweynayaa inay niyad same uga soo qayb galaan oo ay ku xashaashaan nabadda ka jirta xuduntii dalka gogosha xariirta loo dhigay intaas ayaan ku tali lahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweyne ku-xigeenka maamulka ximaniya xeeb ahna kusimaha madaxweynaha Cabdi Maxamed Suldaan Axmed Nuur oo kulanka soo gabangabeeyay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay aad u soo dhaweynayaan dhamaystirka ansixinta shirka maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud waxaan soo dhaweynaynaa shirkii bisha 6 ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya waa la socotaan gadood baan ka muujinay midkii hore shirkii hore saxiixiisii iyo sidii loo isticmaalay loo qaabeeyay gabigaba shirkaas waxaan u arkaynaa inuu dulmi weyn ku dhex jiray haddii la saxay waa soo dhaweynaynaa dawladda federaalka beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan wax kale kuma aanan diidanayn wax meel looga go'aano ma jirin laakiin ujeedka aan u jeedna waxay ahayd dhowr iyo maxay ahayd intaasoo sanadood waxaan soo wadnay gogosha gobolada dhexe inaan dhigno nabadna aan ku dhigno soo dhaweyno gobolada dhexe maamul mid in loo dhiso intaasoo aad ogtihiin 11 state lagu soo dhaweeyay maxay ahayd magaalada Cadaado lagu soo dhaweeyay wax kale loogama jeedin ujeedka loo jeedo waxay ahayd in laga dhigo gogosha gobolada dhexe maamul mid loogu dhisay maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa horan waxa ka soo baxay ismaandhaaf ku aadan hanaankiisa siyaasadeed balse haatan ay arintu muuqataa mid lagu heshiiyay waxaana Cadaado ay u diyaar garoobaysaa martigelinta shirka maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya Cabdifataax Axmed Cali Shiino Somali Channel Cadaado